inkastoo dawladda hoose ay Hargeysa ay ka cudur daaratay inay warbaahinta gaarsiisa magacyadooda haddana daadoodu waxay ahayd dad kor u dhaafaya 50 jir kuwaas oo xabsiga loo taxaabay kadib markii ay waaxda feedhowrka ee dawladda hoose ee Hargeysa ay gacanta ku soo dhigtay iyagoo ku sugan dooxa weyn ee Hargeysa halkaas oo maqaarka ama haraga kaga saarayeen bakhtiga neef loo ah oo dhex yaallay dooxa arrintan oo ah mid ku cusub magaaladani Hargeysa ayaa goobta uu neefkaasi yaalay ahayd meel wada xashiisha waxaana waqtigaasi labada nin la qabtay iyagoo qayb ka mid ah neefkaasi haraga ka saaray waxaana goobta uu neefku yaalay haba yaraatay ka muuqan dhiig ku daatay taasoo muujin kartay neefkaasi la qalay waxaana markii dambe goobta ka qaaday neefkaasi waaxda feedhowrka ee dawladda hoose sida uu sheegay gasimaha bilicda ee feedhowrka ee dawladda hoose ee Hargeysa Khadar Yuusuf Cali howlgalka aan ku soo qabanay neef sac ah oo lagu qolay dooxa weyn ee caasimadda Hargeysa waxay ahayd cabaaro 12 subaxnimo markii aan warbixinta helay in neefkaasi la bilaaway hawshiisa ay nala soo gudbiyay dadku noo soo sheegeen isla markii waan ku baxnay nasiib wanaag waxaan ku gaarnay laba nin oo ayni ah oo da'doodu runtii 50 labadaba ka weyn tahay 50 jir iyo ka kale 60 kaba ka sareeyo oo runtii hawsha faraha kula jira markii waan soo qabanay isla dhigaan gudbinay meesha markii aan tagnay neefkaasi halkii lagu qalay wax alla wax dhiigo yaalay ma jirto hadii jeer xoolaha marka la qalayo waxaan ku naqaanaa inuu dhiig badan ka yimaado neefka marka la qalo wuu raftaa at the same time goobta lagu qalay ma ahayn goob loogu talagalay oo de waxay gudaafad ee lagu dhex qalay oo neef hagaagsan gudaafad cid lama doonato waxyaalahaas oo dhan markaa waxay ku tusayaan sidoo kale neefkaasi uu fuuray oo uu waxyaalahaas oo dhan waxyaalo muujinay neefkaasi inuu bakhti ahaa markaa oo haragiina qayb bay ka saareen qaybtii kalena ku dul qabanay waxaan ka hawlgalay markaa inaanu sawirrada ka soo qaadno neefkiina aanu basrino oo aan markaa cagaf iyo iskurwooyinka ku qaadno neefkii sidiisaba markaa waan dhufanay waxaan toos u geynay markaa dumping site-ka oo ku soo gubnay neefku marka uu bakhtiyo waxa ka dhashay xanuuno kala duwan iyadoo hore ay ugu sii jiraan xanuunadii sababay bakhtigiisa waxaana Cable TV uu baaritaan ku sameeyay xanuunada laga qaadi karo neefkaasi bakhtiga haddii la cuno ama base dadka laga iibiyo waxaana arrintaas Cable TV wax ka weydiiyay agaasimaha waaxda cudurrada guud ee wasaaradda caafimaadka wuxuu u yahay qabatin inuu infection ku galo marka healthka haddii aan neefku uu bakhtiyo marka uu saan nafta uga baxdo waxa imanaya inay infectionski iyo bacteria iyo wixii oo dhan ku dhashaan kuwaas oo sababi kara xayawaano inay xanuuno cusub ka dhashaan kuna waxa ka dhikay in yimaado qurunkaasina waxa weeyaan bacteria wadata oo keenta bacteria ku dhalanayso bacteriadaas keenta inuu qurmo neefki qof dadka bilaadanka halis bay ku tahay iska daa in inta la qasho la isticmaale waxa dhibaato ku tahay marka au xayawaanadu ay dhintaan waan asita ma ku sameeyna sababaha loo sameeyo waxa weeyaan disease transmission inuu xanuun ka imanaya xoolaha nool oo u gudbaya dadka ayna ka dhalin mid kale waxa weeyaan waa meel host wuxuu yahay ama au martigelinaya infections iyo bacteria iyo xodhan ka waa soo sababi kara xanuun fara badan sida ay nafarayso diinteena islaamku waxa muhiim ah in la qala neefka iyadoo lagu bilaabayo magaca Eebe waxaana diintu gabi ahaanba xaaraantimeynaysaa in la cuno neef aan la qalin marka laga reebo arrimaha qaarkood waxaana arrintaas Cable TV wax ka weydiiyay Sheekh Axmed Cabdillaahi Aadam Shabcaan oo Cable TV la hadlay رب الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به جودها وحرام إلهنا سبحانه وتعالى حرمه وهي حديث النبي نوحي تلمانتي بختجا بريجو إنه جودهان حرام يهي كبدا موياني لكن واحد عدا إن حالتها قاركود وقفكو كبقنا يردي مشو haddii aan waxba quudanin inuu isku basamato bixin karo waa ay bannaan tahay laakiin waa markuu geeri qarka u saarmo ee aanu si kale ku baxayn ama qaybta labaad ee ah in laga ganacsado ummadda laga iibiyo waxa weeyaan waa shay kabaa'ira oo aad iyo aad u xun oo akhlaaqiyan iyo diiniyan iyo sharciyan iyo caafimaad ahaanba ku qaldan weeye ciddii arrintaa ku dhaqaaqdana waa cid ummadda dilaysa oo xanuun iyo dhibaato u horseedaysa Maxamed Kuraase Cable TV Hargeysa